cajiib hooyadan oo aan da'deeda ku qiyaasay 9 sano jir waxay qashinka ka dhex baaranaysaa waxay cunto si ay xal ugu hesho baahida daran ee dhafoorkeeda ka muuqata wallaahi isma dhahayn qashinka guryaheena toddobaadkiiba mar laga qaado ayay hooyadan oo kale cunto ka raadsanaysaa hooyo waxaan ugu horreyn ka soo kaxaynaa goobtaasi oo aan ugu bishaaraynay in insha allahu tacaala mar kale aysan dib ugu soo noqon doonin suuqa ayaan tagnay waxaan soo iibinay noocyada kala duwan ee qudaarta raashinka ayaan u soo iibinay gurigeeda ayayna keentay waa mid buush ah oo jajaban waxaana dhex yaalla sariir geed ah oo uu saaran yahay gabal joodari ah wax kale gurigan indhaheennu maysan qabanin hooyo qolkeedii ayaan u gogolnay raashinka ayaan u xaraynay durbaba dareenkeedii wuxuu isku beddelay mid farxadeed waxay ula kaftantay in farxadda maanta ay haysato aysan filin saaka markii ay halkan ka bixaysay anna waxaan u sheegay in deeqda maanta aan soo gaarsiiyey ay ahayd ammaano ay ii soo dhiibteen walaalo ula baxay naftooda iyo waalidkood sida hore maanta ilaahay waa dhaama alxamdulilah walaalihii ilaahay ii yeelay allah ii qayro allah ii fiyoobay ilma allah caafiyo ilma allah siiyo kii kale oo leeya allah la koriyo insha allah muuqaalka kan xiga waxaan jecelnahay inaan uga farxinno aabba ama hooyo Soomaaliyeed oo dhiban ma heli karaa qof ka faa'iideysta fursaddaas oo waalidkiis ama naftiisa wax u sadaqaysta waxaad igala soo xiriiri kartaa lambarka +25 26 17 99 eber 3 qaybta WhatsApp-kana waa uu u furan yahay